السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي سيتهين مفيعنتهين الحمد لله آد بأن في عنا خير يبرواقه إذن كانوا حايدين رجينينا في عنتين عفمات قبطان إن شاء الله تعالى لما أنتين بقى أنت هولا نورجو بتي الشانل كان اسمه يسوبا وحايد الله يا ولاليال لايكتا شاركة سبسكرايب إن شاء الله تعالى آد وقد دالة dadka dhiirigeliya ayaa tihiin inta nagu cusub insha Allah taala ayagana waxaan idin rajeynayaa inaad subscribe saartaan sidoo kale share like comment inaad soo bixin doontaan insha Allah idinkan wax idin ku nahay asxaabay ma sha Allah aad ayaan idin jeclahay saxaabtayda qaaliga asxaabay qisa ayaan noo socotay jacayl oo xanuun badan oo itaabatay oo gabar saaxiibtay qisada ay ku dhacday qaybtii labaad ayaan bilaabaynaa insha Allah la socod wanaagsan insha Allah waxay noo mareysay qaybtii labaad abaayo cambaro oo imaaday Suudaan say ku timid waan ka soo sheekaynay abaayo cambaro Suudaan ay timid waa lagu soo dhaweeyay gabdho Soomaaliyeed ayaa ku soo dhaweeyeen oo wanaagsan uur ayadoo leh ayay timid gabdhihii ayaa qaabileen way ka xanuunsadeen dhibka ku dhacay u sheegtay waxay tir dhibaatadan waxaas ay ugu dhacday uurka sidaasaan ku soo yeeshay ninka noocaas ayaa idayacay xaaladaas ayaan ku suganahay ee ogaada asxaabay ma sha Allah gabdhihii sidii ay ku caawiyeen meeshay deganaayeen hoyga ay deganaayeen ayay dejiyeen meeshan degan nala degano waxaan qabnana nala qabo baay waayay ku tiri intay ka dhaleysay ma sha Allah gabdhahaas soo gacan qabteen oo ayada uur leh ay la joogtay umusheedii dhalitaankeedii isbitaalka tegideedii wax dhan ayaga kala qayb qaateen abaay cambaro ma sha Allah khayr Allah siiyay tiri waa u duceynaysay gabdha aad u fiican ay ahaayeen gabdhihii markay umusha ka baxday ee umushii alxamdulillah nabad ku dhameysatay waxay dhashay horta wiil oo Ilaahay siiyay 4 indhood oo nabad ah ninkii Cali ahaa oo saa u dayacay Ilaahay wiil buu ka siiyay gabadhii mana soo xariirinayno maxaa dhashay uurkii maxaa ku dambeeyay muu dhihin Cali ayadana ma raadsan maadaama uu wax dhan tuuray oo ayada iyo ubadkeediiba weerarad iska soo saar marka hore ku dhahay iyadana dib uma raadsanin waxay tiri tawakkaltu ala Allah ilaaha tawakkalsaday ilaahayna asaga wuxuu ii qadara ma dhaafay tiri sidii ku timid alxamdulillah gabadhii way dhashay nihaayayaan idinku sii dheereyn markay ay dhashay gabdhihii ila joogtaa waxay dhaheen abaay hadda maxaa damacsan tahay waxaan rabaa ay tiri shaqo inaan ii soo raadisaan shaqo aan ubadkayga yarka ah caanihiisa iyo kiradiisa kirada isaga bixiyo maadaama intaan ay soo caawiseen kirana aan igala baxsado noloshaydana aan hay wax kaga qabsado oo fiican ii soo raadiyo waxay dhaheen shaqo banaanka suuqa iyo wax noocaas ilmo yara haysata ma dhex taagnaan kartid marka waxaan ku soo raadinaa shaqo cunto karin ah wiilal Soomaaliyeed cunto loo kariyo ayaan ku soo raadinayaa alxamdulillah gabdhihii waxay soo heleen tiri abaay cambaro shaqo wiilal ah oo Suudaan ah cunto loo soo karinayo waxay tiri subaxdii aan jarmaada cunugayga yarka dhabarkaan saartay tiri waxaa laga raacay tiri maxaa la dhahay bigi maxaa la mooto bigi ah mooto raacay tiri ilmahayga yarkaan dhabarka saartaa waxay tiri Ilaahay kuma darnaadee waxaan tagaa xaafadii wiilasha waxaan u kariyaa tiri quraacdii qadadii cashadii weelkii aan soo dhaqaa guriga aan soo xaqaa oo soo goglaay tiri bisheedii waa ii soo dhacaan tiri alxamdulillah caanihii iyo kiradii cuntadana wax meeshan ka soo cunaay tiri habeenkii waan ka soo hooydaa alxamdulillah wixii aan reerka u dir karo waa uga diray tiri waa ilmo ila yar oo 5 ah oo hooyadeena madax ka xanuunsan tahay aabaheen uu qof waayeel ah aan curad u hay tiri meel aan wax dhigtay iyo ma jirtay tiri iyo wax iiga soo haraay kale inta iska joogay tiri wixii iga soo haro waxaan tiri 100 soo helay aabo ii soo dibay hooyaday quraanka ku saar saas ku ogow oo aan tiri alxamdulillah
aabbe xaq iga soo duceeyaa tiri aabbo balaayo kuma aragto xunye ku arkin hooyadii way xanuunsantay tiri qof marna fiican oo reerka jikada u galay marna xanuunsan waayo tiri qof yacni mar walba sida caadiga ama ahay tiri qof xanuunsan oo sariir jiifa ma ah laakiin qof maskaxda looga jiro waa maskaxiya marka alxamdulilah tiri ilaahay kuma darnaadee gabadhii waa wax badan joogtay soo Suudaan waqti dheer joogtay ilmihii u yara koray adii waxay joogtay adii 2 sano camal ilmihii 2 sano jiro ay markii 2 sano joogtay ee waxay heshay saxaab socota oo u socota tahriib ay isbarteen waxay tiri walaalayaalow anigana wax ma haysto meeshaan joogitaankeedana nacfi iyo malahee waxaan jeclaan lahaa in ay idinku saadarsado laakiin wax ma haysto maxaa igula talinaysaan annaga isku noqonayno wixii nala noqotana waan ku soo sheegaynaa haddaan ku garab qaban karnay hadii kale marka asxaab dad badan ay ahaayeen oo isku saandarsaday isku sii saandarsadaba oo tahriibka isla mari rabo Liibiya u socdeen asxaabay gabadhii waa ka soo tashteen waxay dhaheen walaalay diyaar ma tahay oo ma ka go'an tahay waxaan qabnaana la qabaysaa Allahu akbar ay tiri alxamdulillah shukrillah ma ana hadalka keenay tiri idinku garab qabanaayo oo ana waxba haysan ani cunugayga yarka ah kaxaynaysaan oo waxaan qabnaana la qabay dhahdeen ma diiday tiri fursad waayo waa ducaan bay idinku daraayay walaalayaal waxa qabtiin aan idin la qabaa waana idin raaxa idin kama haraayo waa ilaan qof waxa waaye meeshii waxba gooniya ka imaanin waa reerka boqolka ay u dirayso iyo cuntada iyo caanaha cunug ma dhaafaan hadda waxa qof meesha joogtan hadda ilmo yar haysto oo soo Suudaan joogo xaaladeeda waa iska adag tahay alxamdulillah tiri dadkii la soo baxday wax alla waxay qabaan aan la qabay tiri khayr Allah siiyo tiri waa soo garab qabteen waxaan isla imaanay tiri magafi meesha leedahay magafi aan lugta soo saarnay tiri magafi hadii la imaado ciyaar ma taalay tiri qof walbo nafsi ya taalay tiri ilaahu aniga bixi ilaahu aniga bixi ya taalay tiri magafana aniga ma moodeen tirnay xaalad inta la eg ee taalo waxa u maleynay tiri kulli magafi hadaa tagtidni ilaahay waa غفور رحيم إنه سهل بكاغو قدبي معقول إسداهي تري الحمد لله تري وحان جوغي تري مقفل وقت الدير تدكي إلى السعودنا انتودي بدن وابحين تري انتودي بدنات إلا هالقف أكاري تري هالقف هل ويلي أنا قاكو هاري تري ماشي انت أسل السعودني أو سوكر بقضتي تري وايو حال قف والبق وحا لويديست lacag madax furasho ah oo isku madax oo iska bixiyo qofkiiba waxa la weydiistay 8,000 7,000 6,000 marka aniga markii lacagtaas la weydiistay hooyadii aan wixii kara ma aabahay aan wixii kara ma qof ehli qaraabo ah oo aan maanta hebel oo lacagtaas iga bixi aan dhaho oo iga bixinaya haystaa tiri midna ma isku hayo tiri waxaan ku eetray af carabi yar oo jajaba aqaani tiri من واحد جوين تري سؤال حلها قرض نحوها ليبيان وحوام ما هيستان لها والمتماي تري لعقت انت أصلاً بحيان لها وعد دتكينا لها دتكي دتكودي وعدان أنا قف وعدنا ما هيستو لعقت أصلا ما هيستو سادون تين إيالا إنه غير كان واوتا إنه غير كان وحي تري الحمد لله وحي عن عنه ونلعبنا وحيرا meesha lagu soo tuuray tiri wixii afku galgaliya dadka Liibiyaanka oo meesha nagu haysta naftirkooda kala naxariis badnaay tiri ninba ilaahay waxay tiri ilmahaas yarka ah cunugayga yarka u naxariisan jiray tiri waxay tiri markii ay wax cunayaan intuu wax gooni u keeno ama wax yar oo cabitaan wax yar oo gooni ah meesha ila soo istaagi jiray tiri waa ka soo qaadi jiray afkayga aan saarnaa ilmaha yarka afka u saari jiray alxamdulillah waxay tiri dadkii markay kala tageen dad kale cusub nagu imaadeen haddana dad kale nagu imaadeen hanmada dadka nagu imaadeen alxamdulillah tiri waqti dheer aan meesha joogay 8 biloodan meesha joogay tiri
ninka mas-uulka ahaa mar walba imaaday tiri adiga lacagta ma iska dhiibtid meesha inaa ka baxdid ma rabtid miyaa waa la qaraacayaa tiri jirkeyga waxay tiri calaamadaha ku yaala madow ah lama soo xisaabi karay tiri Soomaaliyeed bay Canbara saasay leedahay waxay tiri jirkeyga oo dhan waa bara madow way tiri ilaa hadda calaamadihii igama go'inay dhan saas ay isar saarantay tiri u shilin guduma waxay tiri nimanka ula oo kaliya ahayd naagtii meesha ku raagtay tiri kufsi ay tiri raaxada laga qaaday tiri markaas iska ooyay tiri waa ooy calooshan dhulka beerka dhulka saartay tiri ilaahayo rabbi raxmaan adaa qadare rabbi raxmaan waa ku soo tala saarto maalinkaas soo baxay rabbiyo meesha iga bixi mar ilaahu meeshan iga bixiyaa dhahay tiri يوم من الأيام maalmaha kamid ay tiri ninkii oo haystay meesha tiri Liibiyaanka ahaa wuxuu dhahay tiri gabadhan dadka tribkan baxay hal lagu daro waa fasax ilaahay awoodiisa way qorantay wallahi waxay tiri gabadhii farxad waa kala badbatay ilaahada xamdigaada ilaan ku xamdinaa ilaadan kugu shukrinaya ilaahu rabbiyo ilaa meeshan mar iga saar iska ooyay tiri waa iska ooyay hooyo aan wax mala aab aan wax mala qaraabo qof lambar kama haysto ehel ma jiro meeshaas aan ku xiranahay tiri wax iga warhaay maanta haddaan wada xiranahay tiri waalidkay kulay waa waasheenay tiri waa waray ku haayaan tiri meel ay iga raadiyaan malaha inaan baxayno u sheegay tiri oo tahriib u socdo oo Liibiya u socdo aabbahay u sheegay tiri aabbo ii soo ducee waa socdaay ma ogey Liibiyaan u socda aabbo ha bixin oo aabbo waa baxay ii soo ducee iyo waayo waa ku ducee ilaahay balaayo kuma hor dhigo meesha u socotid rajaynaysid ilaahay ku nabadgeliyo tiri aabbo kulay ducada aabbahay han qabaay kulay waxaan istahay tiri waxba kaama halaaba ilaahay xamdiga iyo shukriga ninkii wuxuu yiri dadka baxay oo la fasaxay ku jirtaa tiri dadkii lacagta bixiyeen aan la igu soo diray tiri dadkan waa ku dhigay tiri meel aan kaga har mala aha walaalayaal waxa ku jiray tiri Suudaan Itoobiya Eritrean Afrikaan kala madow Soomaali wali waa laga badnaay tiri Soomaalida markaas tribka dadka la fasaxay Soomaalida waa ku yeeray qofkii ani qofa ku harnameedin ma idin tiri qofkii xataa uu baxay dadkii isla soo baxay Suudaan iskala soo baxeen qofna kuma jiro waa Soomaali kale iyo ajaanib inta meesha joogta dhan alxamdulillah dadkii aan ku daba dhagay tiri waa la isoo fasaxay tiri dadkii aan soo raacay waxay tiri abay Canbara waxa imaanay tiri meeshii laga raacay doonta meeshii doonta laga raacay lagu raacay lacagtii ma la isku hayaa waa hadan bad ma dhax soconay waa may ilaahay ku ma darnaadee waxay tiri dadkii waxaan dhahay tiri meel ay kaga harmalaha saxaabay walaalayaalo gacan qabta idinka ma hari karo meelan ku harana malaha nimankii maadaama ilaahay iga soo badbaadiyay doontaan dhinac iga saar waxa qabtiin aan qabayaa doontaan lacagta taas lagu raacaa ee waa ka saawaay dadkii yaa iska tuugay tiri ajaanibtii iyo tuugeen tiri inta Soomaalida meesha ila joogtana waxay dhaheen gabadhaan oo meesha kaga hartay annaga kaliya doonta ma raaci karno wallahi Soomaali waa isku naxariistaa yaa wallahi waa isku naxariistaa laakiin rageena qaarna waa fiican qaarna waa xun ilaahay inta wanaagsan gabdhaha ku doo inta xunna ragga ilaahay soo hideeyo wax kale la dhahmalay yaa idinku dheerayna saxaabay gabadhii doontii way soo raacday oo waxay dhaheen haddaysa gabadhan doonta nala raacin annaga ma baraacaynaba dadkii ajaanibta ahaa wallahi arin aad xanuun badan ahayd waxay soo martay gabadhaas aad caloosha iyaga horisay gabadhii doontii soo raacday alxamdulillah ilaahay waxba kuma yeelin waxay soo socdeenba waxay soo gaareen meesha la yiraahdo Talyaaniga Itaaliya soo gaareen Itaaliya iska dhiibtay
iskamay dhiibin yani Itaaliya dadkii soo gaaray kamid noqotay. marka insha Allah qaybta kale ayaan u gudbi doonaa tripka soo socdo. qaybta koowaad, qaybta labaad, qaybta saddexaad aan ka dhigi doonaa ayaan dhahay saxaabay. insha Allah qaybta labaad meeshan noogu ekaato. qaybta saddexaad aan kusoo ganaanidi doonaa hadalkeena insha Allah iyo qisadeena. qisa aad u xanuun badan waaye. insha Allah inaad wax ka istafiidaan waa rajaynayaa. la socod wanaagsan qaybta saddexaad insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيرت سبسكرايب تنها لو بدأ له وإذا جعلها سحابتي ذقالقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.